أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان وحن وقب اللعبانية تفسير القرآن الكريم وتلاوته وتعلمه وتعليمه. تفسير كقرآن كريم تلاوديسا هي تعلم كيسا هي تعليم تيسا أي هل كان وقب اللعبانية وإلهي سبحانه وتعالى كون كان وحي الله وكان وحي خير كبضناي وحي إلهي سبحانه وتعالى أنبيادي سأوسيي وحي خير كبضناي رسول كان عليه الصلاة والسلام معجزوين كل السيتي وين يدي كتابك مركاسي للسيي ومديسا وأيضنا أمدها كوا خير كبضن إلهينا وصادر رسولك الرسوش هو خير كبضناي هي خلق إلهي دمان توضع على الإطلاق. إلهي مهديسة وحانو دونينا هل كان إنو نوغا قبل الأوضه أيضو 10 كوبات أينو كدقينه قرآنك فضيلة القرآن الكريم وتلاوته وتعلمه وتعليمه. قرآنك كريمك فضلك وإسكاليه iyo akhrinta quraanka la akhriyo fadliga iska leedahay quraanka barashadiisa iyo baridiisa fadliga uu iska leeyahay ayaanu maaratay ka bilaabaynaa 10keena koobaad. waxa noo socod doona marka hadii Ilaahay yiraahdo wax badan oo markaasi quraanka ku tacalluqaya quraanka wixii maaratay makiya wixii madaniya quraanka sida uu soo degay kayfiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka Allahul Mahfuz uga soo qaaday samaa dunya lagu keenay ka bacdi waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu soo dejiyay ala xasab alwaqaa'i ayadoo markaasi waxa weeye la maray siniin badan oo markaasi 23 sano gaaraysa. arrimahaas oo waxa weeye qayb walba aanu gooni u soo qaadan doono ayaanu maaratay ku soo qaadanaynaa. Ilaahay idankiisa waxa noo bilaaban doona muddo bacdigeedna waxa weeye suuradii quraanka ugu horeysay oo Ilaahay oo ku bilowday quraanka oo suuratul Faatiha oo ayadana waxa weeye waxa ay suuratul Faatiha quraanka ugu tahay iyo waxa ay tahay fadaaisheeda waxa ay iska leedahay wax badan ay ku jiri doonaan sida waxa weeye tafaasiir badan oo horay loo soo maray maaratay laga soo dhageystay oo ku soo qaadanay. marka tafsiirka kan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku bilaabaynaa fadlul quraanil kariim quraanka kariimka fadliga uu iska leeyahay. waxaan soo qaadan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo aayado quraan iyo ahadiis oo إلهينا قرآنك وغرمي فضائشه وسكليه رسول كان عليه الصلاة والسلام وكورمي معايا لمرة دي أن كتابك إلهي قد قلينو أيضا هذا قرآنك وحاو يهي وحسوكو بكرأيسان جرين وإن فهم لغصو إحاديه أما لغصو كوبه وقرآنك وكوي يهي وقرآن وعظيم يهي haddana waxa weeye bacdi uun kamid si markaas qofka muslimka oo muuminka oo jecel quraanka kariimka oo kalaamki Ilaahay oo qadiimka khayru khalqillaahina Ilaahay uu ku soo dejiyay si markaas waxa weeye asagoo wax ka fahamsan oo markaas quraanku u akhristo oo u barto ayaa maaratay hadii Ilaahay yiraahdo waxaanu soo qaadanaynaa aayada dhowrho quraanka fadaaishiisa ka waramaaya iyo ahadiis rasuulka kaleey salaatu wasalaam
quraanka fadlaa'ishiisa u waramay taasoo insha Allah ta'ala noo noqon doonta dhowr cashar noo noqon doonta haddaanu maartay ku hormarno aayadaha quraanka ah bacdi kamida aanu soo qaadano ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إلهي سبحانه وتعالى إساقوا رسول كيسة تصايا وحيغا كان لو وحيوذي قرآنك كريمك إنه لمد يهي وحيغي لو وحيو جري أنبياد إساقا كهو رئيسي إيا مزيادة خاصة هو قرآنك إسكالي يهي إلهي رسول كيسا وحو كلهي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا رسولك إلهي يو وحانكو وحيوني sidaan u waxyoonay anbiyada adiga ka horeysay wakadalika awhayna ilayka sidaan u waxyoonay anbiyada adiga ka horeysay oo adigu markaas adigu dambaysood rusushi ilaahay lagugu khatimay wakadalika awhayna ilayka ruuhan min amrina hawda ilaahay ruux ayaanu ku waxyoonay oo amarkayna kamid ah marka hadda waxa weeye ilaahay quraanki wuxuu ka cabiray روح وقرآنك وحا روح لوغا عبري وح سهلا معهم وحا قرآنك روح لوغا عبري لأنه تحيا القلوب به وهوي قرآنك وحا كن ولانا يا قلوب تأيا كن ولانيس قلوب آن قرآن كجر وقلوب الإنسان وهي سيدة رسول كان عليه الصلاة والسلام ودهي qofkii waxa weeye qalbigiisa wax quraan aysan ku jirin masalu ladii laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal baytil kharib oo rasuulka kaleey salaam qofka waxa weeye qalbigiisa wax quraan aysan ku jirin wuxuu la mid yahay guri kharaabay guri jajabay oo dumay amaan cid ku jirin ee bahluhu ay isaga jiraan quraanshadu ku jirto dooliga ama jiirka oo ku jiro waxa weeye mukulaaladu ku jiraan eeyuhu ay ku jiraan qumaamada ama waxa qashinka la isaga tuuraayo qalbiga aan quraan ku jirin saasoo kale u noqonaya sidaas uu rasuulkeena kaleey salaam uu ku tilmaamay marka hadda waxa weeye quraanki qofkii ilaahay qalbigiisa quraanka uu gelsho oo quraanki ku amal falaya qof qalbigiisa uu nool yahay waxa uu leeyahay laba ruux oo iska leeyahay ruuxdii caadiga aheeday oo jasadku uu ku dhaqdhaqaaqay iyo ruuxda tan macnawiga ah oo qalbigiisa uu ku nuuraayo ayuu iska leeyahay qofku markuu maartay saaxibul quraan uu yahay waa qof markaas laba ruux leh laba ruux ayuu iska leeyahay marka hadda qofkii aan quraan aqoonin oo guri kharaabo nabiga kaleey salaam oo ku miisaariye qalbigiisa wuxuu leeyahay hal ruux oo iska leeyahay oo markaas la yiraahdo ruuxul ajsaam la yiraahdo jirkaas ruuxda ay ku dhaqaaqayso taasuna waxa weeye wixii noolaa oo dhan ayay ka dhaxaysaa oo xayawaanka caadiga ah waxa weeye asaguba waxa weeye ruux waa qaba oo markaas ruuxul ajsaam waa qaba qofka marka doosan quraan aqoonin wuxuu la mid noqonayaa xayawaanka caadiga oo la mid noqonayaa xayawaankaas waxba kama duwanaanayo ayadoo markaas wixii noolaaba xayawaan la yiraahdo haddana waxa weeye qofku hadoosan quraan lahaynin oosan quraan aqoonin wuxuu noqonayaa qof markaas xayawaankaas waxba aanan ka duwanayn noqonayaa maxaa yeelay xayawaanku wax waa cunaa waxna waa cabaa waxna waa dhalaa waana xarakaada marka qofka aan diinta lahaynu waxa uu la mid yahay xayawaankaas uu la mid qaalada ilaahay markuu tilmaamay ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala walaqad dara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام والإلهي ضدك إلهي جهنم أو أبوري أو كفارته wax quluuba ma laha dhaga ay wax ku maqlaan ma laha qalbi ay wax ku qaadaan ma laha markaasuu ilaahay waxay la mid yihiin an'amta xoolaha geela iyo ariga iyo looda iyo xayawaanka kale la mid yihiin balhum adallu sabiilan ayagaaba kasii baadiyaysanba maxaa yeelay xayawaanka asaga wixii loogu talagalay oo ilaahay u abuuray ayaa sidaas laakiin ayagoo bani aadam oo ilaahay karaameeyay markay ka tageen ilaahay diintiisa oo quraanka ay beeniyeen oo aysan diin laawayaal ay yihiin waxay ka liitaan xayawaanka mar haddii xayawaanka ay ka liitaan waxay markaasi ay u noqdeen xaabo ay u noqdeen naarta jahannam ay xaabo u noqdeen taas waxa keena markaasi diin la'aanta ayaa keen marka waxa weeye markaasi waa xayawaan oo kalantood weeye quraanki marka waxa looga baxaya in laga duwanaado xayawaanka oo maala yaqilka laga duwanaado oo markaas lagu sharafoobo ayaa markaas quraanki waxa weeye saasuu keenaya ruuxan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iimaan quraankan hortiisoo dhahay nabi maxamedow sayidka maxamedka ahu kitaab wuxuu yahay ma aadan aqoonin iimaan wuxuu yahay ma aqoonin walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa min ibadina laakiin quraankaas ayaan ku soo dejinay waxaana ka dhignay nuur oo aanu ku hanuuninayno qofkii aan doono oo adoomankayna quraankaas marka qofkii waxa weeye ilaahay oo doono oo qof alla uu jeclaaday ah oo nuur ayaa nuur looga dhigaya ilaahayna uu ku hanuuninaya qofkii kitaabkaas ku hanuuna qof ilaahay jecel yahay weeye subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa min ibadina anagoo aayadaasna hadii alla yiraahdo maxalkeeda ugu tagi doona oo insha Allah ta'ala suuratu shura aakhirkeeda ugu tagi doona oo tafsiirkeeda iyo maaragtay waxay tahay si xoog la meeshaas ugu qaada doona marka hada markii ilaahay saasirina wa innaka la tahdi ila siraadin mustaqimin wa ilaahi nabi maxamed dadka waxaad ku hanuunaysaa ilaahay doomankiisa dariiq toosan ayaad ku hanuunaysaa siraadillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ilaahay wadadiisa oo koonkan iska leh samaawaadkan wixii jooga wixii arradaas jooga aqligana uusan gudbi karin wadadaas aad ku hanuunaysaa ilaahay doomankiisa hanuunka nabi kaleey salaam ummadda uu hanuunaayeen waxa weeye kitaabkaas quraanka uu ku hanuunaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay marka kitaabka inaanu ku hanuuno ayaa loo baahan yahay oo sida uu ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa u siiyay ummadiisana uu hanuunayo dadkii ku hanuunayay inaan noqono oo nu ka duwanaano kuwa markaasi rasuulku kaleey salaam uu ku tilmaamay guri kharaaba uu ku tilmaamay de quraan la'aantu saasay keenaysaa inaad guri kharaaba noqoto qalbigaagu uu noqdo oo waxa weeye wasaqa oo hada waxa weeye wax gelaayo xataa bani aadam aysan jirin oo laga hijrooday saasoo kalantood inuu qalbigaagu noqdo waa inaad ka ilaalisaa oo quraanka aad barato oo fahamto oo macnihiisa fahamto oo qiraadiisa aad laasimto ayaa loo baahan yahay marka hada quraankaana ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun nabi maxamed oo quraankaanu sharaf ayuu ku yahay ladhikrun laka wa liqaumika wa ilaahi ayadaas ayadana tafsiirkeeda iyo lakadaas waxay keenaysaa iyo waxa uu tagi doonaa baabkeedan uu tagi doonaa qoonkaagana sharaf ayuu quraanku yahay hada rasuulkii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sharfay oo khalqigiisa midka uu khayrka badan uu ka dhigay ayaa hadana alla wuxuu leeyahay quraanka sharaf uu ku yahay waa sharaf lagu sii diray hada intaas laguma ekayne wala qawmika oo ilaahay ummadaadana quraanku sharaf ayuu yahay hada marka quraanki rasuulka kaleey salaam ilaahay sharafta uga dhigay ilaahay ummadiisana inta nabiga rumaysa kaleey salaam oo kitaabkaas ilaahay rasuulka uu ku soo dejiyay qaadatay ayadana waxa weeye waa ku sharafoobaysaa laakiin hadii waxa weeye kitaabki markii laga tago kitaabku ma aan kaliya in lafdiga la iska akhristo
xoogaa uu maartay tabarruk iyo wax laga dhigto ma aha kitaabku waxa weeye in kulliyan la qaato ayaa loo baahan yahay oo kitaabka lagu amal falo oo meelna markaasi xugun kamida xaraf kamida aan markaasi waxa weeye aan laga tagin al raba quraanka ina qayb lagu amal falo qaybna laga tago waxa weeye taas markaasi iimaan ma aha nimankii yahuudda ahay waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala markay waxna ay tawreed sheegayaan waxna ay qariyeen inta badan waa ku tagi doonaa hadii alla yiraahdo suuratul baqara aayadaas nusuulkeeda iyo waxay ku timide ilaahay wuxuu dhahay afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd oo kitaabka waxa weeye bar miyaad rumaynaysaa barna ma ku kufrinaysaa oo ma diidaysaa fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddi al-'adhabi saasoo dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hadda kitaabka qaar ina la qaato qaarna laga tago iimaan ma ahan kitaabka rumayntiisa ma ahan kitaabka waxa weeye dhamaantiisa in la qaato ayaa loo baahan oo wax ka soo ahkaamuhu ku soo arooray quraanku waxa weeye waxa uu ka kooban yahay 9 qaybood ayuu ka kooban yahay intaasoo dhanba in la qaato loo baahan wax laga taga malaha dadka muslimiinta ah waxa looga digayaa inay kitaabka qaybna ay markaasi sheegtaan oo yiraahdaan kitaabkii waxa weeye quraankii aan maarata intaan qaadayno aayada quraanka ay sheegaysa wax badan oo ayaga laga reebayna ay maaratay oo quraanku uu ka reebayo aysan ka harin ama wax badan oo quraanku faray aysan fartoomin taas waxa weeye sheegashadaas waa mid baadila waaye asaga kitaabka quraanka la qaato sida hadda aan ku tagi doono ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala umadiisa sharaf u yeelaya umadiisa ilaahay subhanahu wa naxariisanaya wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulka asoo adduunkan rahmadu ayaa ilaahay soo diray rahmad ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan u soo hadiyay way quraanka isaguna rahmad way waan ku tagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un ayadaasna suuratu yunus tafsiirkeeda waa ku tagi doonaa marka hadda quraanki la dhikrun laka wa ilaahi wa liqaumika wa sawfa tusalun waana lidinka su'aali doonaa quraanki sidaas ahay inaad ku amal fasheen inaadan ku amal falina ilaahi subhanahu wa ta'ala caalim ayuu ku yahay maalinta qiyaamo alla hortiisa leedin soo joojinaya wixii aad uga amal fasheen kitaabkaas baa leedin weydiinaya inaad ku sharafowdeen iyo inaadan ku sharafoobina maalintaas aad kala ogaanaysaan hadda quraanka sharaftiisa qofka ku sharafooba waa qofka ku amal fala sidaan ku tagi doono qofka ku sharafoobin oo quraanka ku khasaaray oo xujada uu ku noqdane waa qofka amalkiisa ka tagay waa dhibaatada marka jirta oo ummadda islaamka haysata waa inay kitaabkooda ay ka tagaan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay ya ayyuhalladheena aamanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum dadka muuminiinta ah hadaad ilaahi kitaabkiisa diinka alla u gargaartaan ilaahi markaas uu idin gargaariya nasr ilaahi aan ka helno iyo guul aan ka helno cadawga islaamka oo kufaarta iyo munaafiqiinta way ku xirantahay shardiga ku xirantu yahay ina anagu ilaahi kitaabkiisa u gargaarno kitaabka ilaahi markaan u gargaarno waxaan u gargaari karnaa markaan kitaabka ku amal falayno sheegasho waxba tarimayso zacmi waxa weeye iddiaa kadib waaye been la iska sheegto waaye waxba ma taraysa taas markaas idin gargaaraya way sabid aqdaamakum ilaahi markaasuu macrakatul jihad ilaahi markaasuu cagiina ku adkaynayo gaalada adkaanaysa hada waxa weeye ilaahi been looma sheegi kare arintaas dadka muslimiinta hortaala oo muuminiinta ilaahi waa u naadiyay wuxuuna dhahay Allah subhanahu wa ta'ala in tansurullaha yansurkum hadii ilaahi kitaabkiisa aad u gargaartaan ayaa Allah idin gargaaraya hada kitaabka ilaahi nusradiisa waa laga tagay sawma gargaar la heli maayo maxaa yeelay shardigii baan maaratay ayaan laan laga soo shuruudi shardigii ilaahi nagu qabtay ayaana ka soo baxay marka hada waxa sadaad yeesha waxa lagu yeelaha lagu meeshii tiibaan hortaala marka ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ayuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala
quraanka marka waxa weeye fadaa'ishiisa asaga maartaya iska warami doona mar hadii waxa weeye kitaabka Ilaahay aanu bilaabayno oon waxa weeye asaga ku sii jeedno waxa markaasi aad ka ogaa doontaa wax kasta asaga ka ogaa doontaa asaga wuxuu yahay ilmul awwalin wal aakhirin ilmigi dadka hore iyo dadka dambe kutubta Ilaahay oo munazalada aheedo dhan asaga ayaa lagu soo kulmiyay marka waxa weeye quraanku sidaas ayuu maartay u weeyahay haddaan markaas hadda dhanka ahadiistana aanu soo qaadano aayadaha quraanka ka waramay aad ay u tira badan yihiin fadaa'ishiisa waxaanu soo qaadanaynaa xadiis oo imaam muslim uu wariyay saxiixiisa uu ku wariyay oo laga wariyay saxaabiga jaliilka oo leeyahay Zayd ibn Arqam shaybkaas laga wariyay radiyallahu anhu waxa uu dhahay Zayd ibn Arqam قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خضيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة وعود رسول كان عليه الصلاة والسلام مالين أيها النبو دحدين استاغونا أنه جوغنا ميل ليرادو خم لده عيل أو مارتيا خم ليرادو أساقو النبو عليه الصلاة والسلام ناخذ بأخرنا آيه إلا مرول برسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسة هي أمديسة maxay u khayr ayuu uga hadli jiray asagoo markaas noo khudbaynay khudbadan ma antii jumcada maahan ee waa mid wacdi oo muhaadara weey markaas meeshaas la khum la yiraahdo oo ceelkaas uu ku yiilay Maka iyo Madiina u dhaxaysa fahamidallahu wa asna alayhi wa wa'ada wa dhakara ayuu dhahay Zayd ibn Arqam rasuulku alayhi salatu wasalam ilaahi buu ku mahadiyay alxamdulillah ayuu ka bilaabay maaratay khudbadiisa الله أيو فالي صفة لائق أهلي كفالي ضدك أيو وعدي ضدك أيو حسوسي جنة إيا النار أيو وحوال بو حسوسي يا رسول كبعد أيو حوضي أما بعد محل شاهد كأيو نوشي يا انت أسكدي ورا رسولك ألا أيها الناس إنما أنا بشر ضد يهبو أنا وحانا بشر بني آدم أيانا أنا بشر بني آدم أيانا أدون كان إنان كوار ليقومة لقلين يوشك أن يأتيني رسول ربي وحاسود دقاية ربي جيغ رسولك أو صادري ملك الموت إنه مارتيا وسود دقدقه أيا سود دقدقي صودا فأجيب مركز أنا أقول أن أجيبه أو مركز سوى حوي أرواح دي الروح يقلقاده وإني تاركم فيكم ثقلين waxaan idinkaga tagayaa oo rasuulku kaleey salaam laba shay oo culus ayaan idinkaga tagayaa laba shay oo culus ayaan idinkaga tagayaa awwaluhuma kitaabullah labadaas waxa ugu horeeyo oo rasuulku kaleey salaam ilaahi kitaabkiisa ugu horeeyo fihi alhuda wa nur kitaabka ilaahi waxa ku sugan hanuun iyo nur ayaa ku sugan kitaabkan ilaahi oo halkaan ka bilaabayno rasuulkeena عليه الصلاه والسلام ayaa tilmaamay kitaabka cadamadiisa iyo waxa uu yahay iyo hadii isaga la qabsado illa liibaanayo hadii laga tagana la hoogaayo ilaa waxa weeye jaahiliyadi qabla al-islam intan rasuulka عليه الصلاه والسلام ilaahi uu san soo bixin caalam mugdi ayaa jiray caalamkan mugdi ayuu ahaa mugdi aan isha farta la helan ayuu ahaa oo mugdi lagu socday meel walba lagu dhacaayo mahaaligta lagu dhacaayo godadka lagu dhacaayo dirbiyada lagu dhacaayo meel loo jahaysan aan lahayn quraanka markii ilaahay rasuulka ku soo dajiyay ayaa adduunka iftiimay marka hadda ilaahay rasuulku waxa uu dhahay عليه الصلاه والسلام fihi alhuda wa nur uu dhahay waxa ku sugan hanuun iyo nur ayaa ku sugan fakhudhu bi kitaabillah kitaabka ilaahay qabsada ilaahay kitaabkiisa qabsada wasamsiku bi kitaabka ku dhaga ayuu dhahay rasuulku kaleey salaam kitaabkan waxa ku sugan hanuunka umadu ay ku hanuunaysay dariiqa xaq ah oo sawaabka ah oo waxa weeye qofkii qaadaahi ilaahay subhanahu wa ta'ala oo markaas jannadiisi oo u hogaaminayo halkaas uu tagay adduunyo aakhira raali loogaga yahay hanuun iyo nuura ku sugan ee kitaabka ilaahay qaatow dhahay wasamsiku bihi kitaabka qabsada waa isku macna dhowdahay markuu haw dhahay Zayd fahasa ala kitaabillah rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu maaratay ku booriyay asxaabtiisa ala akhdi kitaabillah wasimsaaki
kitaabka ilaahay inay qaataan oo ay qabsadaan ayuu ku booriyo ku adkeey hadda waxa weeye rasuulka kaleey salaam hadigiisi oo kitaabkaas quraanka ah dardaaranku ma ahaynin maartay inta markaas la joogtay ilaa qiyaamadu ay ka qumayso wixii umadiisa oo adduunka joogo mar walba yimaada ayaa dardaarankaas laga doonayaa oo la amraya oo amarka nabiga kaleey salaam qofkiiba rasuulka rumayso rasuulkiisa jecel dardaarankaas ayaa markaas mar walba dushiisa yaala waxa la rabaa zamanka soo adiga ilaahay ku keeno inaad nabiga kaleey salaam hadigiisa aad qaadato oo nabiga kaleey salaam wuxuu ku booriyay umadiisa aad qaadato oo ummadii nabiga kamid noqoto oo u gargaarto rasuulka kaleey salaam iyo maartay kitaabka ilaahay uu la soo diray aad u gargaarto ayaa loo baahan yahay qofkii sidaas yeela ayaa nabiga jecel ilaahay alla jecel rasuulkiisa jecel diinta ilaahay jecel maxaa yeelay nabiga kaleey salaam waxa uu dhahay Zayd ibn Arqam fahasa ala kitaabillah dadka wuxuu ku booriyay rasuulka kaleey salaam kitaabka ilaahay qabsashadiisa waraqaba fihi wa ku tarqiibiyo wa jeclaysiiyay wa ku booriyo way af Soomaali wa ku booriyo suma qaala ka bacdi nabigu waxa uu dhahay mid labaad way awwaluhuma kitaabullah wa tawda rasuulku wa ahlu bayti udhakirukumullah fi ahli bayti mid labaad waxa way ahlu baytkayga xurmadiisa halla ilaaliyo ahlu baytka rasuulka kaleey salaam culimada aymatul islaam waxa way qolaba si u sheegtay marka waxa way nabiga kaleey salaam ahlu baytkayga ayaan asagane wa ahlu bayti udhakirukumullah fi ahli bayti ahlu baytkaygana allah idinku xasuusiya inaad xurmadiisa ilaalisaan ahlu baytka in la ilaalisho ayaa la rabaa bani haashim iyo bani muttalib waaye ayay culimadeena shaafiyada qabaan intaas waa laga badiyaa waa laga yareeyaa khilaaf saasa waa jira wixii nabiga kaleey salaam nisbadiisa ku abtirsanayo nabiga kaleey salaam nasabkooda uu soo gelayo ayaa markaas ay noqonaysaa hatta culimada bacdigood waxay yiraahdeen waxay noqonayaan qof kasto muslima oo mu'mina ayay noqonaysaa marka dadka muslimiinta oo dhan in la dhowro ayay markaas ay tagaysaa ahlu baytkayga ayaan maartay ilaahay alla idinku xasuusiyo oo rasuul riwaayad kale waxa ku ziyaado ka kitaabullahi fihi alhuda wa nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana ala alhuda wa man akhda'ahu dhalla kitaabka ilaahay waxa ku sugan hanuun iyo nuur ayaa ku sugan qofkii qabsada oo qaata hanuun ayuu ku sugan yahay qofkii kitaabkaas gefana waa baadiyoobay kitaabkaas qofkii ka tagane qof baadi ku sugan weeye qofkii baadiyoobana qof halaagsamo waay riwaayad kale waxay ahayd kitaabullaahi huwa hablullah kitaabka ilaahay weeye mid ka horo waa xarigi ilaahay man tabacahu kana ala alhuda kitaabkaas qofkii raaca hanuun ku sugan yahay ومن تركه كان على ضلالة قفك كتاب كات كسغنه بادي ايو كسغن روايه ترمذي ليدهي وحي هذه او نبي الله عليه الصلاه والسلام اني تاركم فيكم انا waxaa idinkaga tagay dhexdiina ma inta masaktum bihi lan tadillu ba'di shay hadaad qabsataan ba'digay adan waligiin baadiyo bayna ahaduhuma a'zamu min al-akhari midka kale waa ka weeye wa huwa kitabullah wa ilaahi kitabkiisa حبل ممدود وحرك سو تاغنو سمدا كسو تاغ من السماء الى الارض كتابك الهي حرك سمدا كسو تاغنو دولك سو raaraca way qofki markaas xarigaas qabsada qaadahu ila aljannati riwaayada hada jannada ayuu markaas u geynaya qofkan qabsana naar ayuu ku dhacaya marka xarigan ilaahay oo samada ka soo raaraca aanu ku wada qabsano wa idrati ahlu bayti qarabadeeduna ahlu baytkayga waa u dhahay rasuulku lam yaftariqa ma kala tagayaan kitaabka iyo ahlu baytkayga xurmadoodu hatta yarida calay hawlka inta iga aroorayaan oo hawlkayga ay igu iimaanayaan fanduru kayfa takhlufuni bihima waxaad u fiirsataan labadaas sidaad iiga khaliif noqonaysaan waxaad iiga bedel noqonaysaan ka fiirsado rasuulka kaleey salaam marka insha Allah ta'ala waxa weeye 10 koobaad oo fadaa'ilul quraan ka hadlayo kitaabkeena tafsiirka ku bilaabaynay intaas aan ku soo koobaynaa والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.